بس- بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa madaxweynaha dowladda Puntland gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha maxkamadda sare xubnaha labada gole ee federaalka iyo Puntland ku jira madaxweynayaashii hore isimada jananada hablaha dhalinyarada saxaafadda ciidamada iyo in la inta mas'alada ka soo qayb gashay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaan u mahad celinayaa ka soo qaybgalayaasha meelaha fofo ka yimi iyo meelo dhowdhowba oo ajiibay shirka kan aan dowladda Puntland ku soo casuumtay ee ah wada tashiga aad baad u mahadsantihiin waxa hadalkii aanu anagu xukuumad ahaan lahayn dabcan madaxweynaha noo yiri hadda waxaanuna u soo kacay inaanu ku raacsanahay waayo dardaaran baa jiray isimaduba ha u badnaadeen Puntland u yeelo inaanu waxay tahay maamulka halkani ama xukuumaddu meel wada marto meel wada joogto inay kala jahaystaan ma ahayn marka tii anagoo ku soconayna dabcan waxay ahaan jirtay maanta waxbaa la bedelo waxay ahaan jirtay dee ku-xigeenku inuu madaxweynaha ku soo dhoweeyo laakiin maanta isagii baa maxay tahay waxa ay marka hadda noqonaysaa inaan caddeeyo inaanu ku wada soconno oo intii aan odhan lahayn uu noo yidhi madaxweynuhu wayna tahay waxa aan runtii shirka kan isaga ah isagoo inoo furmi doona wuxuu inoogu dhan yahay intii madaxweynuhu yidhi suugaan iyo maxay ahayd khudbadana way inoo dambayn doonaan waxa laydinka sheekayn doonaa 98 ilaa maanta intii u dhaxaysay Puntland marxaladaha ay soo martay waxaan qirayaa wax badan horumar badan baa laga gaadhay runtii waxna waa dhiman yihiin waxa laga gaadhay horumarka ah waxaan aad iyo aad ugu ammaanayaa madaxweynayaashii hore mas'uuliyiintii hore ama madaxweynaha ama xukuumadahadeena ee naga horreeyey oo qori isku dhiibka ahaa oo qaarkood ay fadhiyaan hadda aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa meesha ay soo gaadhsiiyeen oo annana aanu ka sii amba qaadnay way ku mahadsan yihiin iyaga kuwan jooga iyo kuwii ka horreeyeyba waxaan qirayaa in horumar wanaagsan oo weyn la gaadhay oo aad arki kartaan waxaan kaloo qirayaa in wax badni dhiman yihiin sida maalintii Puntland la isugu yimid 98kii shirkii isaga ahaa iyo maanta waxbaa ka dhiman gobollada ka maqan waxaan ku dadaalaynaa haddii alla yidhi xuduudaha inaanu sugno wixii ka maqan Puntland oo complete inaanu maxay ahayd aanu ku dadaalo inay Puntland oo dhammaystiran aynu haddii alla yidhi isugu nimaado waxaan ku dadaalaynaa Puntland midnimadeeda inaan ka shaqayno waxaan kaloo iyana ku dadaalaynaa sida madaxweynuhu yidhi Soomaaliya midnimadeeda maadaama ay halka ka dhalatay oo hooyadii Soomaaliyaba ay Puntland tahay waxyaabaha sida la sheegayay shirka haddii laga qabay xogaa shaki ah waa laydin caddeeyey saansaankiisana waad aragtaan midna waa idiin sheegayaa waxaa la yidhi hadda madaxweynuhu
waxaanu diyaar u nahay oo Puntland diyaar u tahay in wuxuu madaxweynuhu halkaa ka akhriyay waxay ahayd cabasho federaalka iyo annaga marka la eego oo Puntland colaad ma ahayn cabashay ahayd cadowtinimo ma ahayn waa cabasho cabashadana waxa la yidhi nuur iyo naaliyaba waa loo joogaa buu ninkii odayga ahaa yidhi naftiyo iga bixi waa joogaan ismadii waa joogaan madaxweynayaashii hore waa joogaan federaalkii waa joogaa ummaddii waa joogtaa cabashadaas annagu waxay waa cabasho qura idinkaanu idiin soo bandhignay diyaarna waa unahay inaanu ka garbaxno oo ka jid qaadano waxaanu rajaynaynaa haddii alla yidhi inaynu waxyaabaha aan ballan qaadnay oo ay ka mid tahay wada tashigan aad aragtaan inuu joogto noqdo oo la wada tashado waxaanu ballan qaadnay oo wadaynaa intii suurtagal ah xisbiyadan aanu hadda bilownay oo madaxweynayaashii horena ay soo bilaabeen waxaanu haddii alla yidhi wadaynaa wix allaale wixii aanu isugu soo dhaweynayno waanu diyaar u nahay intaas madaxweynuhun baan ku kaabay waxaan ugu isu soo taagay waan ku kabayaa annagoo kala wakiil noqon kara anigoo ka wakiila madaxweynaha waxaan ku dhawaaqayaa shirkii officially inuu inoo furan yahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin